labadii wiil ee dhalinyarada ahaa ee beesha ogaadeen ka soo jeeday ee shalay laga afduubay magaalada Hargeysa ee muuqaaladeennii hore aan inigu soo gudbiyey meydkooda ayaa saaka laga helay duleedka magaaladaasi isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa ayaana goor dhow la keenay waxa ayna bilaabeen nimankii idoor ee waxa weeye cararay ee la jabiyey ee halaagsamay ee dagaalkii jamcada lagu halaagay beegsi aysan u kala aabayeelaynin ma gabadh baa ma wiil baa ma nin weyn baa ma ilmo yaroo saqiira ma ku abti loo yahayba ma naag la qabaa beesha daarood ayay u saareen daaroodba ma yahay waxa ay iyagu iska dhaadhiciyeen inay ugu aargudahayaan kumanaankii dhalinyarada ahaa ee looga dilay laasacaanood wiilasha qaabka loo qabtay iyo sidoo kaleeto beegsiga nimankan ay wadaan iyo fariin culus oo aan wado oon doonahayo inaan u gudbiyo beelaha daarood ayaan halkan idinkula wadaagayaa waxaan dhanka kale taayadana muuqaal cajiib ah idinka wadaa bulshada beelaha daarood toddobadii beri ee ugu dambeysay saamaynta ay ku yeesheen iyo sidoo kaleeto saamaynta ay yeesheen nimankaa waxa weeye idoor oo isbarbardhig aan ku samaynay iyadana muuqaalkeeda oo cajiib badan oo weliba dumarka u badan halkan ayaan idinkula wadaagayaa waxaan dhanka kale taayadana wax ka odhan doonaa oo aan faahfaahin idinka wadaa jabhaddii beesha garxajis maxaa u hirgalay maalmihii ugu dambeysay maxaase ka jira inay ku biireen ciidamadan iyo maleeshiyaadkan hadda la ururinayo la doonahayo inay dib dagaal ugu soo qaadaan deegaanada SC iyadana xog baan idinka hayaa waxaan dhanka kaleeto faahfaahin ka bixin doonaa oo aad ka bogan doontaan dhowrkii saacee ugu dambeeyey waxyaabaha la yaab kale ee lagu arkay deegaanka og oo nimankii argagixisada ay isku urursanahayaan iyadana waan dul istaagaynaa muuqaalka like saaro shargareeyo la wadaaga asxaabtina like dharkaas ee sumeel dheer u gaadha insha allahu tacaala inta ayna faahfaahin ka bixinin oo qodobada muuqaalkeennan aana ka hadlin bal horta kiligan yar ee saamaynta bulshada idoor iyo sidoo kaleeto bulshada daarood bal horta aynu isla yara daawano kadibna aan isku soo noqono ninkii dhaaf ku yimi beeye geeridu dhibaysa waqtigii dhamaayo idarme qaranka berida weynme car waa naagta geesiyada car gara waay maanan habeebacnaa wada shafka kala weynle oo futaan ku wada caradhay waxay leelaan lahaa gooc imaada way leelaana furunta car waa naagta furunta taado akiyo baadarille surubna muxuu ku yiri halka yutander sander muuse muxuu fasaxaa axmed kaax wuxuu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun na muuse mamaad bu fasaxaa muuse oo nafasax waxa weeye muuse oo niman la'aan baan haysa iska fahmaa marka hadaan u baahantii walaalayaal soo dhawaada amiin dhaha ilaahay baabka inuu ka foriyo amiin dhaha ragga ilaahay baabka inuu ragga ka foriyo amiin dhaha ilaahay waxaanu baryaynaa waxay soo qabteen inuu ilaahay iyaga ku rido warankiina wanaga ku dhufanay ha ku taagmo durriyadii waxaynu nahay reer Soomaaliland shar ma naqaan xumaan ma naqaan baab ma naqaan baabna ma naqaan balana ma naqaan waxay nagu soo rogeen sidii markalan cishadii u dhaawaceen la socday maantana waranka inaan garaadka xumaanta wada gala dagaalka anigu taago man oolin arki waa la xasuuqay la dhamaanay wahagaag muuqaalkaas horta waa saamaynta oo baraha bulshada ku yeeshay waxaa socda dagaal xabad ka kulul oo dhinaca social media ama baraha bulshada ah nimankii idoor toddobadii beri ee ugu dambeysay rag iyo naagaba waa baroor waa oohin waa muusawaya ka fasax murjiniyo waxay wataan murjinkaas garajaabac habaar weeye habaar rag waa isdagaalaa xabad baa la isku dagaalaa toori baa la isku dagaalaa ul baa la isku dagaalaa oo rag weligiiba waa isdagaali jiray laakiin habaartan in intii lala soo istaaga la yidhaahdo murjinka garajaabac baan ku turqay murjinkaas waa sidaan waxa weeye morgan waagaan dhaawacay anaa la sooda ciidamada baab ma naqaano baab waaba ka baab kaas weeyaba haddaa turqaysaba wayba turuqdayba haddayba sixiradii waxa weye farqaha ku wadataa sixiradii bay farqaha ku wataan arbaleeyihin ma naqaano halka nimankii daaroodna waxa weeye gabdhahoodu saa iskaga damaashaadayaan qosolka iyo farxaddu ka badatay waxa weye reynreyntu ka badatay wayba ku jeejaasayaanba muusow soowad gabdhaha soowad rag baan u haynaaye meel baan dejinaynaaye laxoox iyo waxaan ka dhejinaynaa waxaa weeye canjeeraan ka dhejinaynaaye
taa waa social media horta waa lagu kala baxay social mediaha waxaa la yidhahdaa baraha bulshada raggay gobonimada lahaabaa horta qaatay social media waxay u xidhan tahay harti bay u xidhan tahay iska daaya dadka kale daarood ma wada dhahayno oo daarood hadde waa jamhuuriyado waxaa weye waxba iskama ogaba qaar nin odaya hadda maanta qise yar baa inaga sheekeynaya anagoo maqaaxi fadhiya oo iska shaahaynaya ayuu soo fadhiisto wuxuu leeyahay waa 70 jir weye waxaan baraha bulshada dadkan ka qaylqayliyaya meesha isku dagaalaan waa xaggee buu leeyahay oo waayo soomaali miyaa dadkan isdagaalayu taagan yahayba waa nin waxa weeye daarooda weye ninkaa niman waaweyn oo odayaalan ka warhayninba waxaad gooja cadii laleeyahay iyo laascanood baa lagu dagaalamay iyo harti iyo waxaa isdagaalaya waxa weye saaq iyo niman waaweyn dad waaweyn baan ka warhayninba waa jamhuuriyad wey waxa kama warqabaanba iyo dagaalkan waxaad ka hadlaysiin maba ogaanba xataa dad soomaaliya inay xagga ka jiraan oo dhulka hadda sheegaynaba soomaaliya ay degan tahay maba ogaba waa dad marka daaroodku waa jamhuuriyade harti iyo isaaq 7 beri ugu dambeysay gob iyo waxaa loo kala baxay midgaa loo kala baxay midgo kuwii isaaq waxaa weye baroorta oohinta hablahoodii waxay joogaan inay soo dusaanba oy hartida usoo dhuuntaan bay joogaanba hablihiibaa waxay taagan yihiin inay soo dusaan taas horta waa lagu kala baxay oo social media waa lagu kala baxay ujeeddada aan usoo qaatay inaan bulshada u iftiimino qaabka maanta 7 beri ugu dambeysay social media maadaama dunidu ay teknolojiyadda ay aaday oo model waxa weeye mid walba teleefonkaagu si walba loo taagan yahay in bas barbardhig lagu sameeyo waa muhiim taasi waa taas horta waxaa sababay dagaalkii jamcaha sababay iyo jabkii iyo halaaga ku dhacay nimankaas ee la gaadhsiiyey shaxdii qiimaha badnayd ee ciidamadii SSC ay dhigeen allaha guuleeyo mid taariikh waxa weye ummadda soomaaliyeed usoo hoysay oo weliba haddanana shacabka waxa weeye hartiyeed waxa weye run ahaantii u noqotay bog dahabi ah waa bug dahabiya waxa weye ku qortay ayay noqotay allah ina barakeeya ayaan leenahay intaasi u dhaafi mahayo isbarbardhigga social media ama baraha bulshada shalay waxaan inii sheegay 2 wiil oo muuqaalkiisa inii soo bandhigay muuqaaladeena kale aad ku daawan kartaane in meesha la yidhaahdo shabac sbebartis horteeda laga qabtay 2 wiil oo waxa weeye ogaadeen ah oo dhalinyaro ah oo iska waxa weye magaalada iskaga damashaadaysay oo jigjiga ka imaatay in halkaasi laga afduubay oo ay afduubeen ciidamo muuse biixi ka amar qaata ama ciidamada somalilandba ciidamadaasi ciidamo cadifadaysan oo loo qorsheeyey maalmihii ugu dambeysayba dagaalkii jamcaha wixii ka dambeeyey inay beegsi sameeyaan oo cid walbo ay daarooda arkaan ay qabtaan naag iyo ninba saqiir iyo kabiirba yaa loogu talagalay bay ahaayeen 2 wiil jigjiga markay waxa weye togwajaale kasoo gudbeenba war baa laga hayay dhakab baa la siiyey shalay baa la qabtay ilaa iyo shalay waxoog lagama haynin ilaa iyo xilligii askartu ay gacanta ku dhigeen 2 wiil magaaladu bay damaashaad u imaadeen 2 dhalinyaro ahaayeen oo yaryar oo da-doodu 19 iyo 21 meelaha lagu qiyaaso ma aysan ahayn dhalinyaro maanta waaqica taagan ka warqabta dhalinyaro cadifadaysan oo waxa weeye dagaalkaas hadda uu saameyn ku yeeshay maysan ahayn dhalinyaro un waxa weeye iska bartay hargeysa inay iskaga imaadaan markay rabaan oo geyiga soomaaliyeed meeshay rabaan iska tagaan oo dagaal iyo waxaaba aan dan ka lahayn oo ogeynba ayay ahaayeen ciidamadii shalay waa kay marka afduubeen saaka waxaa xoguu sheegayaan in iyagoo meyda duleedka magaalada laga helay dad shacaba ay usoo sheegeen laamaha amniga ama laamaha ciidamada booliska somaliland oo ayagu markii horeba dee raggii dilay ka warqabaya kadibna ay soo qaadeen oo hadda ay ku mashquulsan yihiin inay dhahaan isbitaal baan geynaynaa oo qaabkii loo dilay oo baaritaan baa lagu samaynaya isbitaal magaalada hargeysa ku yaala ayaana la keenay xilligii 1 duhurnimo ayaana halkaasi la keenay oo isbitaalka la keenay baaritaan ayaa ku socda oo la rabaa in waxa weeye meel kale loo saaro oo eheladoodii iyo dadkoodii lala xidhiidho laakiin shalay waxa qabtay ee wiilashaa dilay waa nimanka beegsi ayay wadaan dhacdadantii koowaad maaha waad ogeydeen 2 maalin ka hor burco inay 4 gabdhood oo iyaga ay qabaan ama 4 haween iyagu ay qabeen oo u carruur dhalay oo xaasaskoodii inay dileen oo haddana muuqaal ay kasoo duubeen oo baraha bulshada soo dhigeen waxaa kasoo dambeysay iyadana gabadh xalayto iyadana lagu weeraray fiidkii gabadh ogaadeena oo 7 iyo 6 ciyaal meelahaas u dhashay nin isaaqa oo magaalada degan in waxa weeye ninkeedina magaalada ka maqan yahay in la soo weeraray oo naaga 4 iyo 10 oo guriga ay ku hareersanay hoostan ay ka xidhatay codna ay noo soo duubto ay tiri arrintaas halay soo gaadho haddii lay badbaadin karo guud ahaan marka beesha daarood waxaa socda beegsi waxaa socda isir nacayb waxaa socda in waxa weeye shacabkan jabay ee ciidamadoodii jabeen ee halaagsamay ee ku soo halaagsamay dagaalkii jamcaha
inay doonayaan qof walba oo daarooda oo ay arkaan inay gowracaan qof walba oo daaroodba hadduu yahayba daaroodna waxuu u jeedo iyo wuxuu kala og yahay ma jiraba dagaalkan xataa dhacayaba waa khabar maafish intiisa badanba waxbaba ma kala ogaba dagaalkan waxba kama oga khabar maafish weeye dagaalkan waxba kama ogaba daarood waxa weeye marka waxaan leeyahay beesha daarood ha is ilaaliyaan oo ha iska ilaaliyaan nimankaa cadow ah oo waxa weeye la jebiyey kubnaanka askari waxa weye laga dilay waxay ku bitaamayeen cagta la mariyey ictiraafkoodii 33 sano ay ka shaqaysanayeen waxa weeye gooja cadda lagu gubay buuggii dhanaa ictiraafka ugu qornaa gooja caddaa lagu dhex gubay seed marka isdhexgal bulsho loo samayn karaa marka isdhexgal bulsho ma dhici karto idinku hayna soo galaan haddaa rabtiin waxba hadilina haddaa rabtiin dee dad isleeg iyo dad isku nasab ah iyo dad waxa weye isku dhigma iyo dad isku mug ah daarood iyo saaq maaha iyagoo waxa weeye intan ka yar oo soomaalidu intan ka yar tahay oo soomaalidu waxa weeye aad iyo aad soomaalidu ay isku jeceshahay iyagu gaalay raaceen sayid maxamed cabdilla xasan baa suuqa dhowgu hayay gaaladiina ka kaxeeyey oo kasoo gooyey arbu markuu gaaladii kasoo kaxeeyeyna yidhi waxaad yeelaysaan gaaladii waa inaga kaxeeye waxaad saad rabtiin hadda yeela soomaali baa tihin hadda dadkan marka dad soomaali raba maaha dad waxa weeye diinla ma aha dad waxa weeye dameerla ma aha dad aqligooda uu shaqeeya maaha dad xumaanta iska reeba maaha dadkaas noocaasa marka in bulshadeenna isdhexgal lagu sameeyo aad iyo aad bay u xun tahay wax fiican maaha waxaan leeyahay marka nimanka daarood ama beesha daarood beelaha daarood iska ilaaliya nimanka deegaanada hay tagaan ganacsigiina ka xidha ganacsi waxaa inaga badan dhulkaad idinka leedihiin dekedahii ugu badnaabaad idinka leedihiin puntland iyo somaliland isku in bay inii jirtaa ha ka adeeganina xataa wax ganacsi oo dhexdiina mari kara yuusan yeelanin ha ka adeeganina ganacsigiina puntland usoo jiheeya deked dhan oo idinka aad leedihiin oo iska maamulan kartaan oo hadda jaam aan ahayn oo shacabku ay dhisteen oo lacagtii dadweynaha lagu dhisay ayaa puntland ku taalla garacad baa ku taalla laamiga kasoo baxa waxa weye jigjiga saacado kooban baad ku tegi kartaan waxayna leeyahay marka ganacsigeenna usoo jeediya puntland xaggeeda ka daaya nimankaas iyo xidhiirkeenna inoo kala xidha wajaale nimankaa ay degan yihiin ha la xidho xuduudda ha la xidhaba xuduudda ha la xidho hal qof ayuusan kasoo gudbin hal ganacsina ayuu kasoo gudbin ganacsiga waxaa inagu filan koonfurta soomaaliya waxaa inagu filan puntland baa inagu filan oo aan kasoo adeeganaynaa oo wax walba inoogu filan oo jubbaland baan ka keensan karnaa intaad aragteen inii jirta oo cidkaa waxa wey kaa hortaaganayn jirin dhulkii ugu badnaa baan haysanaa kenyaad ka keensan kartaa oo adigu aad leedahood maamulataa waxaan uga baahannahay ma jire nimanka ayna kala xidhaan laayaan leehay oo ha la is ilaaliyo oo dhallinyarada iska qulqulaysaay dagaal baa jire waxa weye is ilaaliya weliba wejigan labaad ee hadda bilaabanaya ee nimankan ay doonayaan inay soo rogal celiyaan uu ka cuslaan doonaa midkii hore ee laascanood ka socday nimankan way isku habar wacdeen ciyaal oo dhan bay isku keeneen dhallinyaro oo dhan bay soo ururiyeen waxay rabaan ceebta iyo fadiixadda maanta saaran ee soomaali oo dhan ay ka sheekaynayso inay hal mar un dhahaan ciidankii waxaan jebinay s c oo taangi baan qabsanay oo gaadhi baan qabsanay dagaal oo maxaabiis baan qabsanay oo intaa buunbuuniyaan oo maleeshiyaadkii oromo ay soo qaqabteen ay ku kabaan bay rabaan markay isilaaliya ayaan leenahay dagaalkan inagu ma naqaano noocan oo kale ah ee la beegsanaya naagaha la qabo iyo ragga waxa weeye abtiga loo yahay dhacayaalka abtiga loo yahay ma naqaano ha la isilaaliyo midda kaleeto waxaan arkayay oo niman saaka kasoo hadalaya niman wadaado waagi hore iska dhigi jiro cudaamado waaweynaayo dadka lacaga ka urursanay ka dheerdheeraa oo waxa weye halkaa taagan oo le marna dacwada marna waxa weeye qoriga waxaad dacwad ku weyday qori ku heli maysid adoo waxa weye u ducaynaya oo masaajidka ku jira raggaad soo tababaratay iyo saraakiishiiyo libaaxa weeye aad lahayd ee 33 sano ku faanaysay 15 daqiiqo ayaa lagu gubay marka iska taagnaada og baa laynagu soo qabanaya waxaana leeyahay dagaalkan dambe waxa weye soo bilaabi doontaan waxaad soo raacisaan oo dagaalka soo gelisaan ninka la yidhahda nuux baastamcaan iyo muuse biixiya ina kaahin saddexdaa noo soo geliya aynu ducayna ilmaaryaalow saddexdaa soo geliya dagaalka oo qaybaha ka noqdaan saddexdaasaan rabnaa inaan qabanno saddexdaasaan noo ballana inaan qabanno intaasi u dhaafi maayo nimankaas wixii ay sameeyaanna waan arki doonaa dhankan kaleeto jabhaddii beesha garxajis waxaa saacadihii dambe la sheegayaa jabhaddii way ku biirtay jabhaddii way ku biirtay jabhaddii way ku biirtay ma markaa dagaalka ku jabto ayaa jabhadda u baahatay markii hore jabhadda umaada baahnayd
markaad waxa weye RRU ku weeraraysa ee buurtaada uga dabagelaysa ee ciidamada aad ku weeraraysa umaada baahnayn haddaad u baahatay miya markaad jabtaad u baahatay markii lagu riiqaad u baahatay markaad ceebowdaad u baahatay markaad marataad u baahatay markaad ciidanka qaranka kudiideen baad u baahatay jabhadda waxaan leeyahay islaaliya waan heshiinay inagu heshiis baa dhexdeenna maray heshiiska dhexdeenna maray marka anagu isaaq leenahay idinka kuma jirtaan isaaq rag baa jaabka ku wata waxba kuma qabtaan idinku wax isaaq la dhiya somaliland wax ku qabtaan ma jiro annaga waxaan inala qabanaynaa markuu muuse bixiyo maleeshiyaadkiisa ay daandaansi soo sameeyaan qacdaan ka siinay ilaa iyo burciyo caynabaan cagta marinaynaa haween iyo ciyaal la taaban mayno carruurtiina ma taabanayno intaa markaan cagta marino oo kuwa mas-uuliyiinta uu soo dirsada cagta marino oo hargeysa la isla galo idinkana xaggaa kaga soo dhufta madaxweynahaad rabtaan oo furen haddaad rabtaan oo furen geysta annagana xuduudda annagaan ku laabanaynaa idinkana xuduuddina xidha intiina maamusha maxaad rabtaan marka intaas weeye intaasaan leeyahay jabhadda intaa wixii isdhaafsan haddii dagaalka ay noqoto oo inaga in layska horkeeno ay noqoto haddee waxa weeye nin walbiiyo taagtiiyo waxa weeye cududii nin walbana tabartii ayuu tallaabsan dhib ma laha iyadana dhib ma leh haddaad mawqifka aynala qumanaato oo musabixiina sasabto idinka iyadana inay taallaa dhibaato ma leh intaasina jabhaddaan leeyahay waxaana leeyahay xoogaga SSC guuliyo gobonimo